السلام عليكم كسو دوادا نصري channel 999 kadib markii falal amni daray ay ka dhaceen magaalada Laascaanood falalkaasi oo marar kala duwan soo noqday ayaa madaxweynaha Soomaaliland u diray gobolkaasi guddi ka kooban xukuumaddiisa oo arintaasi u kurgala sidoo kale dadka deegaanka Laascaanood ayaa iyaguna u magacaabay guddi heer deegaan oo arintaasi u kurgala guddidii ka koobnaa wasiirada iyo saraakiisha ciidanka ugu sareeya ayaa waxay ku dhaqaaqeen fal ama ka ku noqday shacabweynaha Soomaaliland iyagoo arintaasi wax la tashiya aan la sameeynin dadkii deegaanka amba guddidii deegaanku ay u xilsaartay arinta amniga. Arintan ayaa ceeb waxay ku tahay shacabka Soomaaliland oo dad Soomaaliyeed laga barakicinayo dhul Soomaaliyeed. xukuumadda ay garwadeenka uu ka yahay madaxweyne Biixi ayaan eegin arintan dhibta ka soo gaari kara dadka ka soo jeeda Soomaaliland ee ku nool koonfurta Soomaaliya. dhacdadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland oo iyagu markaasi arintaasi dhaleecayn u jeediyay xukuumadda sheegayna in falkaasi yahay fal ka soo horjeeda bani'aadantinimada iyo islaamnimada. waa kan mudane Maxamed Abiib isagoo arintaasi ka hadlaya oo dhaleecayn dowladda dusha uga tuuraya. qadiyad xun baa waxay ka dhacday Laascaanood meesha la yiraahdo dad walaala ah oo muslimiin ah oo soo magan galay halka Soomaaliland in la kala qaaro hooyo iyo ilmaheed hooyo iyo wiilkeed qoys iyo hantidii oo 30 sanadood haystay meel ay dawladnimada ka soo gashaan uma garanayo. dawladnimadu dadka ma qixiso, dawladnimadu dad taajiriinaha ceyd kama dhigto, dawladnimadu dad ladnaa, dawladnimadu hooyiyo ilmaheeda ma kala kacayso. wixii halkaa ka dhacay wuxuu ka soo horjeeday dhammaan dastuurka Soomaaliland buu ka soo horjeeday, xeerarka Soomaaliland buu ka soo horjeeday, diinta iyo shareecada iyo muslimnimadu ka soo horjeedo waa cambaaraynayna waxaan leenahay dadka walaalaha ee gobolada kale ku nool war dadka ayaan leedii bahlay gelin masaakiinta ka digtoonaada reer Boorow waxaan arkayay ceeri gaabo oo fariinta qaadatay oo dadka saaraysan arkayay yaan dadka leedii bahlay gelin. dadkaasi waa masaakiin guryahoogii dhibaato ka soo saartay ilaahayna man baata shabcaana wajaara jaayicu ila jambi haddii ka warnaado dheregsan jaarkaaga ay ku gaajoodaan oo dad caruurtaadiya maatidaadiya laga kaxeeyo magaalada oo goraya cawl iyo jidka ay ku mulaan waa la idin weydiin doonaa. waxaan idin sheegayaa magangelyadu waa shay weyn. ninka magantiisa laga kaxaystaa sharaf male karaamo male aakhirana meel fiican kuma laha. sidoo kale arintan foosha xun ugubkana ku ah dhulka Soomaalida ayaa waxa arintan dhaleeceeyay odayaasha madax dhaqameedka waxgaradka aqoon-yahanada Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Sool iyagoo arintaasina ku tilmaamay arin aad u fool xun. sidoo kale culimada gobolkaasi ayaa iyaguna ka hadlay. waa kan Sheekh Maxamed Xaliike oo arintaasi ka hadlaya ummadda Soomaaliyeedna ka raali gelinaya. arintaasi dhacday aad baan uga xunnay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax raali ka yahay maase wax u dhaceen walaalaha Soomaaliyeed arinta ku dhacday waa ka raali gelinaynaa. waxaanu leenahay sidaas wax u dhacaan raali kama ahayn. dad baa ku noola deegaanka oo Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo dad islaam oo walaalaheen ah oo Soomaalidu way isdhex joogtaa sida halkan iyagu u joogaan dadkan halkan deganba koonfur bay u joogaan. waqooyi iyo koonfur Soomaali waa dad walaalo ah oo muslimiin ah oo isku diin ah oo wada dhashay oo isku luqad ah oo isku nabi ah oo isku kitaab ah dadka walaalaha weeyaan. dad baa 30 sano halkan deganaa taqriiban way soo kala horreeyeen caruuraa ku dhashay oo ku guursaday oo weligood baan koonfur arag. waalidkood oo soconaya yimid waalidkood baa halkan ku guursaday qaar iyagoo ilmo kaliya sitay yimaadeen qaar waxa weeyaan kadib carruur badan bay ku dhaleen. habeen hore wixii ka dhacay magaalada iyo hawshii dhacday iyo dadkii la raafay raali kama nihin. sida wax u dhaceen wax loo maamulay
إلهي من بريء وانا ذلك مني سبحانه وتعالى. النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إلهي وحو فرل يالي وقال وقري وواجبيي شيء كستا إن لو إحسان فلو هدو قف وح بني آدم يهي هدو الدنيا تهي إن لو إحسان فلو والله سما فلو والله قا إلاليه وحي ضيعه iyo waxyeelaa iyo wixii xumaana weeyaan. barnaamijka dadka raristiisa haddii hala raro dee go-aanka uu ku soo baxay oo madaxdii gobolka iyo wadanka haysatay ay go-aan ku gaadheen oo ay gaareen waxay ahayd inay dadka la wadaagaan culimada dhaqanka oo isimada ah ganacsatada dhakhaatiirta inay la wadaagaan oo yiraahdaan go-aankaasaanu gaadhnay waa kama dambays dadka qaarkii deegaanku ha jeclaystaan in la raro oo qaarkood ra'yiga ha qabaan laakiin hadday go-aan ku gaadheen xukuumaddu bulshada meesha deganay ilaa ummadana kumanaan qof aa deganayday in dadkii ay la deganaayeen wax laga weydiiyo in iyagii loo yeedho waxgarad iyo culimo iyo odayaal iyo ganacsatay leeyihiin in loo yeedho oo la yiraahdo go-aankaasaa la gaadhay maamulku soo jeediyey haddaan deegaanka nahayna arrintaasaan anagana nala wadaagay idinna waa lidinka maarmi waayey sidii aad wadanka uga guuri lahaydeen baa lidinka rabaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaasaana lidinkaga raraya. sidaasay marka ku habboonayd xitaa haddii la rarayo in wax loogu sheego oo alaabtooda iyo maatadooda iyo arrimahooda isku dubaritaan geedigu iyo socodku markuu qofku caadi u guurayo aan cid khasbaysaaba jirin ayaa geedigu dhib badan yahay. haddii qofka dabada laga galana waa ka dayac badan yahay. arrintaasi aad baan runtii oo waa arrin caqliga iyo diinta iyo dhaqanka iyo bani aadanimada aan ku habboonayn weeyaan. waa khalad weyn oo arrintaasi dhacay. waxaynu leenahay arrintaas ilaahay aan uga toobad keenno. waa marka labaade dadkaasi haddii hantidoodii iyo amaalkoodii iyo dad ummad degan oo 30 sano ku dhawaad degan bay ahaayeen in loo ilaaliyay u baahan yihiin. ciddii shuraakada la ahayd ee ganacsiga cid shuraaka la ahayd waa inay ilaahay uga cabsato hantidoodii u ilaaliso. waa in dadka haddii geedi iyo guurid la gelinayo inta hadhay intii hore dhacday aan loogu darin oo si sharaf leh oo islaamnimo leh oo wanaagsan rarkooda looga qayb qaato. waa in dayaca iyo dulmiga la iska ilaaliya ilaahay laga cabsada. adduunyadan wax yar baa la joogaya. maanta waad joogtaa haddaad tahay wadaad haddaad tahay taliye haddaad tahay madaxweyne haddaad tahay ganacsade haddaad tahay oday dhaqameed haddii aad tahay aqoon-yahan maanta waad joogtaa laakiin biri ma joogtid waad tegaysaa. wixii aan halkan kala tagto baad ilaahay la hortegaysaa. waxaan leenahay arrintaasi dhacday aad baan uga xunna. ilaahayna subxaanahu watacaala wax raalli ka yahay maase wax u dhaceen walaalaha Soomaaliyeed arrintaa ku dhacday waa ka raali gelinaynaa. waxaanu leenahay sidaas wax u dhacaan raalli kama ahayn. waa qofku ilaahay wuxuu yiri quraanka sayajcalu Allahu ba'da usrin yusra. culays dabadii ilaahay fudayd buu keeni doonaa inaad ka daldorsataan oo aad meel ka faa'iido badan tagtaan oo wax ka wixii idinka dayacmay alla idin dhamaystiro weeyaan. culimadu iyo dadku waxgaradku inta waa hadlaya. nin Soomaaliyeed baa laga sheegay anigu garta jeedi baa la igu yiriye ku dirlay ma oran. dee dadku waa hadlayaan wax waa la sheegaya laakiin laguma dagaalamayo dee kuma dagaalamayno dee wixii la jeediyay waa la qaadanaya. waxaan rajaynaynaa madaxda iyo maamulka gobolka jooga haddii ay taladii iyagu go-aanka gaadheen oo sidaa wax yeeleen dadka inta hadhay in si wanaagsan loo dayactiro hantidoodana loo ilaaliyo intii tagtay ilaahayna looga cabsado. shalay madax maadan ahayn maanta madax baa tahay برينا ميد بعد نقونيسا قود لغريدي دونو أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. sidoo kale arrintan waxaa ka hadlay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble in dad Soomaaliyeed laga soo celiyo laascaanood. dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed joogay
ma dhihi kari waa tarxiile iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool laascaanood maanta la yidhaahdo ka guura koonfura ka timaadeen waa ayaan darro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa uu inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaas inaad iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer laascaanoodow